بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف سيدنا نبينا محمد. halkan waxa aan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda reer Somaliland. waxa aan ku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa aan soo dhaweynaynaa curashada bisha Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak ayaan leeyahay ummadda reer Somaliland dhammaan. waxa aan ummadda reer Somaliland aan leeyahay inaad iswada cafidaan, inaad is saamaxdaan. bishu waxa weeyaan bishii cafiska, bishii is saamaxaada, bishii alle xaggeeda lagu dhowaanayay. waxa aan leeyahay ummadda reer Somaliland raxmadka iyo nimcada ilaahay ina siiyey waa islaamnimada. waxa weeyaan dadka isjecel ee iscafiye ee is saamaxa. waxaan intaa raacinayaa maadaama aynu nahay ummad muslima, bisha Ramadaan ee kariimka ah, ummadda reer Somaliland waxaan leeyahay kiina dhiban, kiina miskiinka ah, inaan dhammaanteen aynu wada garab istaagno oo aynu miskiinkeenna aynu ogaano. oo waa bisha keliya ee sadaqadu iyo sakadu labaduba ay wax tarto, ee qofka bini-aadanka ah ay nadiifiso. aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka debdemiska qaranka jamhuuriyadda Somaliland, ciidanka qaranka debdemiska jamhuuriyadda Somalilandna dhammaantiin ummadda reer Somaliland waxay idin leeyihiin Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. ilaahay ramadaanteeda haynagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo raxmaadka. waxa aan leeyahay soom wanaagsan, ilaahay haynoo dambi dhaafo dhammaanteen, camalka saalixa ahna ilaahay haynaga aqbalo, aynu ku dadaalno camalaadka saalixa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan ummadda jamhuuriyadda Somaliland.